wararka media youtube soo dhaafa sida hore baan ka sheegay insha Allah bidilaa kariim waxaan isku day doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waa san hore ku sheegay oo barnaamijkii hore ku sheegay waxaan isku day doonaa inaynu bal dadka fikirkooda iyagana aynu cabirno oo in aragtidooda cabirno oo markii aan dariiqada sayidka leefka kaga jiray wixii xog Kismaayo ku hayay waan dhameeyay oo wax xog ma soo celinayo hadalkan kuma soo celinayo wixii xog ahaa ninkii u baahan xog far badan baan hayay xogtii faraha badnayd oo 5 qodob ka koobnayd page-ka dariiqada sayidka ayaan 20 daqiiqo ka hor ku bixiyay halkan laba qodob baan kaga hadlayaa hawiye waan la hadlayaa waa qodob beesha hawiye waan la hadlayaa hawiye waan la hadlayaa hadii Ilaahay yiraahdo waxa kale oo la hadlayaa inta kale waxaan siin doonaa aragtida dadweynaha shacabka Soomaaliyeed inay soo qabsadaan oo qaabka nabar iyo naxdin uu wajahayso Kismaayo ay ka hadlaan qaabka ay nabar iyo naxdin Kismaayo ay u wajahayso ciidan Itoobiyaan in Kismaayo lagu weeraro xaq miya mise waa xaq dar Itoobiya iyo Kenya midka cadow ah Itoobiya iyo Kenya keeba inoo cadow ah kee cadow soo jireen ahaa waa qodob in Kismaayo nabad ku hurda ciidan rasaas wata lagu weeraro sidoo aragta iyadana qodobada waan sheegay horta intaan qodobada u guda galin hawiye la hadlayaa beesha hawiye ayaan la hadlayaa barnaamijka la sheer gareeyo intaan qodobada u guda galin beesha hawiye la tacaaruf baa qabiilku waa xalaal dhulkana Soomaalidu kala leedahay way kala degtaa dhulkana Soomaalidu kala leedahay beesha hawiye ayaan la hadlayaa khaasatan beesha Abgaal iyo Habar Gidir la hadlayaa beesha Abgaal iyo Habar Gidir ayaa khaasatan la hadlayaa insha Allah bismillaah kariim marka barnaamijka kooramka noo buuxiya barnaamijku beesha hawiye waan ku furayaa waan la hadlayaa insha Allah bismillaah kariim waxa kale oo barnaamijkan ku qaada dhigi doonaa doorashada Jubbaland codka dadweynaha aragtida dadweynaha qof walba uu soo qabsanaya qof walba soo qabsada WhatsApp-kana waan idin qorayaa qof kasta oo soo qabsadana waxaan ka rajeynayaa inuu yacni fikrad soo gudbiyo kayga aragtida duwan waan soo qabanayaa qofkayga aragtida duwan nabar iyo naxdin habka wuxuu wado iyo weerarka ku taageersan waan soo qabanayaa waan la doodayaa kayla aragtida bas ama rabo ka bisi waan soo qabanayaa laakiin waxaan barnaamijka intaan soo qaban marka kooramka buuxisaan waxaan ku bilaabayaa hawiye ayaan ku bilaabayaa kooramka inta marka kooramka buuxisaan hawiye ayaan ku bilaabayaa beesha hawiye ayaan ku bilaabayaa li tacaarafu qabiilku ceeb ma aha qabiilka in la sheegana waa sax Soomaalidu 4.5 wax ku qaybsataa hadalka minnic iyo jirjiic looma baahna hadalka minnic iyo jirjiic looma baahna 4.5 wax lagu qaybsadaa 5 ka beela laga dhigay 4 kana beela weeyaan beesha hawiye ayaan la hadlayaa marka beesha hawiye ayaan si toos ah ula hadlayaa kooramka buuxiya sii gudbiya barnaamijka sii gudbiya waan soo qabanayaa dhamaantiin insha Allah bismillaah kariim waxaan idin siinayaa muddo hal saac ah oo dadkiina aanu hal 2 daqiiqo wax ka yar ayaan hadli doonaa ama seeno 10 daqiiqo wax adu 5 daqiiqo wax aan dhanayn ayaan hawiye ka hadli doonaa laakiin waxa kale Jubbaland ayaan waqti gelin doonaa Jubbaland aanu kama hadlayo waan ka hadlay cidii u baahan waxay weeraraysaa waxay ka daawanaysaa dariiqada sayidka iyo YouTube-ka ku leeyahay Qumbar TV labaas ka daawanaysaa iyo hadii ku roon yahay YouTube-ka had markii dhawaa on live ka ahaa isaga laftiisa waa ka daawan kartaan marka saasay tahay kooramka la noo buuxiyo kooramka buuxiyo horta kooramka buuxiya insha Allah bismillaah kariim ha isku dayo qof walba inuu sii gudbiyo barnaamijka uu kooramka buuxiyo sida fiican ay daawanaysan aad ugu mahadsantihiin soo dhawaada insha Allah bismillaah kariim okay wax yar kor u qaada dadka insha Allah bismillaah kariim wax yar kor u qaada sii gudbiya waa soo qabanaya qofkayga aragtida duwan qofka ila aragtida duwan sida ninka Damager may Ahmed ugu qoran tahay qofka ila aragtida waa soo qabanaya wallahi waa soo qabanaya kayga aragtida duwan ma wali tan eeganaya qofka ila aragtida duwan qofka iga aragtida duwan ayaan ku soo qabanaya waxaan ka xumahay hadii la ku roon yahay page-ka ka shacab badan laakiin page-ka hadan mar live ka galo maalin labaad kama soo galo dabeecadaas ay yaala page-ka maalin baa mar hadan live ka soo galo arrin kale oo iyaduna isla maganaysaa mooyaan page-ka marka laakiin ciwaankan waayahan duugoobay baan caawa ka wadaynaa maadaama page-ka daqiiqada ka hor kaga jirnay marka insha Allah bismillaah kariim soo dhawaada kooramka buuxiya sheer gareeya kooramka buuxiya kooramka ciwaanku waa 100 iyo wixii loo dhaafo page-ka waa 300 200 iyo wixii ka sareeya ilaa 400 weeyaan marka ciwaanka 100 ka gaarsiiya horta sheer gareey barnaamijka haddaad doonaysaa inaad ila doodo barnaamijka sheer gareey sii gud waa ku soo qabanaya wallahi ku soo qabanaya aan beema sheego mana cabsado
cod aan kula doodan ilaahay uu siiyay kartiya waana u soo galay media inaan kula doodo weeyaan kuwa ila aragtida duwan ma ku horreysinaya waan idin sheegay laakiin gudbiso barnaamijka horta sii gudbiso koorka buux maandhow wad baa ku jira maandhow weysadana wuu sayidna Cabdullah Xasan Xuuli weysadan maxaa ku jira baa leeyahay kala soo maandhow weysada wad reer hebel laaya wad idoorka laaya ku jira maandhow weysada wad markaan ka siiyo dhaha waab ka duulay mana wareero mana waasho naxariisna waa kala wareegnay hadaba biyaha cad ma wax kale biyaha cad weeyaan marka biyaha cad ee waxa waa biyihii samsamka ee biyihii sayidna Cabdullah Xasan ay dhaahdo ayaan u cabiyaa nabar iyo naxdin wab markaan ka siiyay nabar iyo naxdin kala duushaayeen wab markaan ka siiyo ay nabar iyo naxdin ilmaysa nabar iyo naxdin ilmaysa nabaanta nabar naxdin ka okay waxa weeyaan waa dhaafin weydeen ma garan karo wax yar culus si kastaba ha noqotee barnaamijkeena Jubbaland maanta ay kaga hadlaynay si fiican ay daawateen oo kumaasantiin intii u baahan wixii warbixina dariiqada siidka aado 20 daqiiqo ka hor baan ka baxay hadda waan idin sheegay markaan ka sii baxay ciwaanka ka soo galaya barnaamijka dadweynaha hore waan ku sii sheegay iyo dooda marka kan waa kii dooda aha ama yaraada badnaada 10 qof 5 qof boqolka qof hadda ku dhaw yihiin inta duntaan ugu daawada si badiya laakiin waxaan ka horeynaya hawiye wali baa tan dhowr jeer baan ka hadli doonaa hadda bis kama hadli doono horta beesha hawiye oo beelaha Soomaali ugu ballaaran waa beelaha Soomaalida ugu ballaaran waa beelaha ugu Soomaalida jecel haddana masiiba haysata masiiba ayaa haysata hawiye waana beel Soomaaliyeed oo Soomaali jecel beesha hawiye hadda markaad dhalinyarada barato marka hadda dhalinyarada barato ayaa tabaranaysa qurbaha waan joogin badan jid baan soo maray qurbana caska meelo fara badan hawlo fara badan ganas muddo fara badan markaad gurigaaga iskaga jirto ee aqalkaaga iskaga jirto tuulada degan tahay dadka ma kala baranaysid marka dadka gurigaaga dhex degan tahay ee aqalkaaga canjeerada ku cunto ee shaaha ku cabto ee cuntada ku cunto dadka ma kala baranaysid laakiin xaqiiqda waxaad baranaysaa laba marad ku baranaysaa qofka social media isticmaala wuu baranayaa qabiilada qabiil walba dabeecadiisa qabiilka cuqdadaysan wuu baranayaa والله هو برانيا قبيل كعقدة برانيا قبيل كلا كفتمي كرو برانيا قبيل كدلقات كرو برانيا قبيل كيعني أنت هو برانيا بقف سوشيال ميديا استعماله قفل بو برانيا قبيل لا عن أنت بدن إن لك أن لك فتمو عشعله وحكم إذا ما تشرتين ولا كفتمي كرا إن لك فتمو عشعله هاي أو التعارف وين قبيل اسمه لا تشرتين وعشعله لكن لك فتمو هوينا هبر قدر يبقى قبيل هويور إن هبر قدر يبقى إن لك فتمو عشعله هاي ولا مرة رسالة بتر لنيرت كتير أي يعني ميديا كتير أي يعني لنيرة عقدة كم مقطعنا هين أو يغلفتوا أي كفتمان المشارتين يهبر قدر المكان اللي هذا يا الساق يا أوجادين إنتها بين الله كفتمان شعره إلى كرباشات شعره الساق ويا كرباشو أوجادين إلى كرباشو يهبر قدرته المكان المشارتين كأبجل ويعني هنا مساس ما حاك حاجة تصالح قادنا يا أبي لا ما ضبط عقدة يسمع ضبط عقدة هاي سمع dad cuqdada haysan abgaalka ku dar dad cuqdaysan ma marka qabiilada hada ugu si dulqaadka badan ee ugu Soomaalida jecel waa kuwee ee dhalinyartooda dadka ugu jecel waa qabiilka la yiraahdo abgaal iyo habar gidir dad xadaariya oo sharaf badan oo karaamo badan oo Soomaali jecel ba ka dhashay qabiilada habar gidir iyo abgaal iyo qabiilada ugu tunka waaweyn hawiye weeyaan hawiye marka la yiraahdo qabiilada yar fara badan baa jira oo aad u fara badan laakiin qabiilada ugu tunka waaweyn ee baawarka quwadda baawarka sida hadda qabiilada ugu tunka waaweyn daarood ay yihiin majarteen iyo ogaadeen hadii la bikuro qabiilada ugu tunka waaweyn hawiyaha marka la waa habar gidir abgaal haddaba qabiiladaas masiiba haysata iyaga oo ah dad Soomaali jecel oo dadka Soomaali jecel waliga aan arag والله dadka Soomaali jecel maanta wiilka abgaalka isbarataan kama xiiso goynaysid wiilka habar gidir isbarataan kama xiiso goynaysid si kasta hadaad siyaasigooga u mucaarado wiilka habar gidir siyaasigooga hadaad si kasta dhulka ula dhacdo ababo ma garanaysaa waxa ku hawliisa iska wadanaya kuma nacayo kaama cararayo kuma cuqdadoobayo waxa dhici karta inuu leefkiisa soo galo uu siyaasigaaga karbaasho uu hawlihiisa ka hadlo uu arintiisa dhiibto uu fikirkiisa dhiibto laakiin tu ku cuqdadoobo life ama seeno kuma soo galay luuqa oo qoraal ay wax kuma soo qorayo laakiin waxa jira dad cuqdadaysan oo hadaad sanad teegaarsanayd oo laba cisho mucaarado saddex cisho hadaad mucaarado wallahi dad cuqdadaysan baa jira sanadan hadaad teegaarsanaato oo laba cisho mucaarado labada cisho hanjabaada ka bixi cabaadka ka bixi luuqa ka bixi hanjabaada xitaa dilbi kugu hanjabayaan waxba ka qaadi karin marka ilaahay baa bixiya karaamada iyo ilaahay baa Soomaali jacaylka bixiya ilaahay baa cud bixiya ilaahay baa waxba bixiya marka hawiyo horta jaajuus ma laha qabiilada hawiyo jaajuus ma laha
qabiil jaajuus yaqaana ma aha qabiil ay ka yacni Soomaali nacibna ma aha qabiil Soomaali jecel weeyaan oo aad u Soomaali jecel oo aad u Soomaali jecel oo aad u Soomaali jecel waa qabiil ay ka dhashaan dhalinyaro firfircoon oo wanaagsan oo dadka Soomaaliya jecel oo meel kasta jecel oo meeshaas ku barataan baad salaamayso oo idaan kala xiiso go'ayn laakiin masiiba haysata qabiilka anoo sharaftiisi u haya hawiye anoo sharaftiisi u haya oo karaamadiisi u haya oo cizigiisi u haya oo idin ku dhaaranaya qabiil ka sharaf badan inuu jiro Soomaaliya qabiilada ugu sharafta badan ugu karaamada badan ama nacba hawiye ama ha nacbaan ama aanay igu nacma igu nicin laakiin wiil hawiye ha ka tagi gabadh hawiyana ha ka tagi wiil hawiye iyo wiil gabadh hawiye ha ka tagi daaroodka laftiisa qayb wax la qaata qaybna iyagu iska qayb baa maganaysa qayb ma si kala qaaday laakiin daaroodka isma jiro daaroodka isma saara laakiin hawiyaha habargidii abgaal baan ka bartay cid kale kama baran cid kale horta cid kale kama aragba habiyaha habargidii abgaal baan ka bartay dad sharaf badan oo karaamo badan cizba de waa labada qabiil awood leh oo ugu awood badan oo ugu faraha badan maxaa ka wada dhibaato haysata magaalada Muqdisho horta yaale magaalada Muqdisho yaale 30 sano magaalada Muqdisho haystaay hawiyaana le war daarood dhulkiisa wuu dhistay daarood iyo hawiya Soomaaliya ugu awood badan labada qabiil baa Soomaaliya ugu badan qabiilka soo raaca waa dir oo marka isaaqay samaroon la isku daraa dirka laftiisu dhulkiisa wuu dhistay hada fiiri dirka laftiisu dhulkiisa wuu dhistay dirka laftiisa dir iyo hawiya daarood saddexda qabiil baa Soomaaliya ugu awood badan uguna fara badan saddexda qabiil baa Soomaaliya ugu awood badan uguna fara badan waxa ugu awood badan daarood hawiye waxa ku soo xiga dir waxa ku soo xiga raxweyn nimanka la yiraahdo waa saas four ka saas la yiraahdo raxweyn halka ay dhig raxweyn labada gobol ee deegaan waa la deegaa ogaadeen baa la deegaa qabiil kala la deegaa halka ay dhig iyaga qabiil yacni saa si far badan ma runta marka laga hadlayo marka laakiin jareerta la qaybsato 4.5 ka iyo marka lagu daro isaa la isku daro la isku wada daro iyo ma garanaysaa de iyaga laftooda ma yaraanayaan laakiin qabiilada faraha badan wuxuu noqonayaa hawiye daarood iyo dirku kaan saddexaad buu galayaa laakiin hawiye daarood halka ay dhig marka daarood dhulkiisu wuu dhistay maanta Kismaayo waxaan jeedaa Kismaayo ciidanka Itoobiya ma gali karaan oo dhul daarood Jubbaland wax yar oo argixisada gacanta ku haysa mooyaane shacabku way nool yihiin meelaha yar ee Jubbada dhaxaynta gacanta kaga hayaan marka laga reebo shacabku way nool yihiin Kismaayo waa dhul daarood hal maalin qarax ka dhacay walitaan qaraxaasna kooxda farmaajo khayra ayaa sabab u ahayd oo sabab waxay ugu ahayd amnigii magaalada khalkhal galiyeen dad bay u direen dad bay ku adeegsadeen dadkii bay askartaana baaraysa askartii bay ka cawdeen waxay bal u dabciye waayay bal askartay u dabciye qolyahan cabaaday u dabciye sayna dhibaato u gaarin iyagii baa loo dabciyey iyagii baa qaraxii loogu soo hoos dhimiyey iyagu wax qarxiyeen alla garan iyaga laftooda qarxiyeen iyagii loogu soo hoos dhimiyey labaas laakiin kulli fildi cindi dhibaatada waxa iska lahayd nabar iyo naxid iyagana amniga hoos u dhigay amniga iyaga hoos u dhigay marka kulli fildi dhibaato kasta oo qaraxii ka dhacay waxa dusha iska leh argagixisadu ha geysatay laakiin dushooda waxa iska leh nabar iyo naxid sababtoo ciidankii Jubbaland ayay waxa ku tilmaameen ciidan dadka camburinaya saasay tahay ciidanka amniga sugay dadka baarayay bay ku tilmaameen kana amar qaadan waayeen kooxda u direena qalaasi galiyeen saasay tahay marka Kismaayo iyo Jubbaland waa dhul nabadgelyo inta argagixisadu haysta marka laga reebo dhul kasta qabiil kasta argagixisadu dhul buu ka haystaa hawiye uu ka haystaa daarood uu ka haystaa laakiin dhulka argagixisadu qabiilada ka haystaan kama hadlayo halka ay dhig laakiin dhulka dawladda gacanta dawladda ku hajira ee daarood hadduu Puntland yahay iyo hadduu Jubbaland yahayba waa dhul seefa oo qofka qurbad joogti ku noolaan karo oo cudurba ku noolaan karto waa dhul una qarax ka dhicin waa dhul yacni kala dambeyn waa dhul yacni dadkooda waay maxaa dhacay Muqdisho waa magaalo hawiye weeyaan caasimadda Soomaaliyeed ha ahaato laakiin magaalada Muqdisho hawiye iskale dhulka waa la kala leeyahay dhulka Kismaayo suu daarood u leeyahay ay uu garan waa daarood u leeyahay uu Boosaaso daarood u leeyahay ayaa magaalada Muqdisho hawiye iskale dhulka ninna dhulkiisa laguma qabsado haddaan maanta Mareexaan gada ku qabsado qaladkan iskale haddii aniga Kismaayo lagu qabsado qaladkan iskale haddii aan waxaan ku yiri isaaq Hargeysa ku qabsadana iska qalad iskale haddaan Muqdisho hawiye ku qabsadana qalad iskale iyagoo dhulku isku keen jiro oo maanta wiilka hawiye uu Kismaayo ku noolaan karo oo sax tahay inuu ku noolaado xitaa xilka qaban karo uu xoolaha ka cuni karo uu ka shaqeysan karo ganacsi sax tahay laakiin deegaan ahaan oo maanta aan Muqdisho ku noolaan karo oo saa doono oo xaqayga ka helay oo saa doono ugu noolaanayo oo xaq inaan ka helaan sax tahay oo ku ganacsan karo oo sharaftan doono ku yeelan karo laakiin deegaan ahaan iyo dhul ahaan hawiye iskale Muqdisho waay aad hawiyow 30 sano qaraxu ka dhacaya maxaa bal isku dar mid kale ka sii gudub hadda kooxda nabar iyo naxdin magaalada jid bay dhagaxaan bay kaga gooyeen qaraxina way ka celin kari laayihiin gudoomiyihii gobolka la dilay garoon baa loogu magac daray gudoomiyaha gobolka soo socdana Allah garan
قرون بالله كوكلا سن قرون بالله ما أقدر بفيري يعني أن سيدا ما أنت إثيوبيا إيه نبغى نحل السوق وحلو به مركا إنا يعني هي قاعدة تسقبستان ديكو مقالة دي كاسكالة هويو ويل كدارود تشوغا مقالة ودقين هاي لكن دقيقة كمرة مقالة ودقنانة يا إنه دقنانة أظن هو دقنانة ساكس معي يقرأ يمال قصة دارود دقوا دقنانة لكن هدير بيكون هاي مقدشة عاصمة دينها هاتو هذا لكن ولتنا سيب أبقال مركا أبقالو دواد ضابطين هبل قدير واد ضابطين ما أنت هبل قدير لكو قيب الله قد قبيل بالله قيبي شيف بالله قيبي واحد الله قيبي صاروخ سعد سليمان بالله قيبي وعواس كمان ناس كمان قرنيان مركا هبل قدير أي ما من القوالات كأجل مذوق للسو ما أنت لك هوية أي أقول لي تقول لك الصوماليين لك هوانا قبيل وقش شرفت بدن وقش صومال شعر محاد هذا مركا وقبيل كدولة بيت شعر وحول بيت شعر شرفت بدن كرامة بدن حدنا محا كل عود بعتوك تجت هاي دول كودي ما أنت اللي باتك تجت هبل قدير قبيل ما من القوالات كودي وكفرفرية ما مقدشة قرحة معلومة البكر دعاية marka hawiyo walaalayaal waan idin jecelahay dad sharaf badan baatiin dad karaamo badan baatiin dad aad u jecel baatiin dadkan Soomaali ugu jecel baatiin qabiilkan Soomaali ugu jecel baatiin qabiilka aan ka dhashay hawiyan ka jecelahay wallahi hawiya ka jecelahay waa qabiil sharaf badan oo karaamo badan waxa la ka baahan yahay inaad gacanta isqabsataan waxaan yaanihi inta dhibka ku socdo ee dhibka ku socdo waa dhib bay leedahay waxa weeyaan xildhibaanadu waad aragteen siyaasiyiintiini mucaaradkiini qayb walba muxaafidkiini way baabadeen marka waxa loo baahan yahay inaad gacanta isqabsataan oo tashataan oo hadii dawlad idin difaacay hadaad weydeen amisoonna idin difaaci weydo Jubbaland maanta burburinayso xagga shacabkii Muqdisho ka difaaci lahayd oo meeshii dhismeeda isku filay burburinayso inaad idinku tashataan oo meeqaanka Muqdisho la sameeyo oo Muqdisho ciidan gaar ah loo sameeyo oo Muqdisho amniga taas ku iman kara Muqdisho meeqaankeeda aad u istaagtaan in Muqdisho meeqaan gaar ah loo sameeyo Muqdisho in meeqaan gaar ah loo sameeyo aad u istaagtaan ana oo la xoogaa hadda galaya meeqaanka magaalada Muqdisho sababtoo Muqdisho iyadoo caasimadda ummadda Soomaaliyeed dadka deegaanka kaliya 3 milyan inay xuquuq helaan waa sharci dadka kale ee 3 milyan qabiilada kala deganada way la helayaan xuquuqda kuwa deegaanka u leeyahay ay helaan kuwa dhulka la degan way helayaan marka maxaa weeyaan meeqaankiina hadii magaalada Muqdisho meeqaan aad u sameeysan oo u hawl gashaan oo meeqaanka sameeysan oo shal siyaasiyiin ma sameeynin siyaasi kale maanta joogaana idima sameeyo oo meeqaanka u hawl gashaan ciidan gaar oo ciidanka Kismaayo ama Garowe kala sameeysataan magaalada amnigeeda gacanta ku haynaysan magaalada amnigeeda gacanta ku haynaysan wiilkiina dhimanaya ee qarax lagu dilay gabadhiina dhimanaysa ee qarax lagu dilay waad ka badbaadaysaa meeqaanka Muqdisho u istaaga nabar yan naxdin guri baa lagu waardiyeeyaa waxba kama qaban karto guri baa lagu waardiyo waxay kama qaban karto laakiin idinku shacab ahaan kooxda nabar yan naxdin waxba maadaama idin qaban waayeen idinku shacab ahaan gacanta is qabsado oo bal waxaan suu noogu dhacaya maalin walba dhax si argixisada maalin walba noo qarxinaysa dhax war ma argixisadiiba maalin walba idin qarxinaysa argixisada maalin walba idin qarxinaysa dawlad waxay ka taraysan meesh ma jirto dawladda argixisada Muqdisho ka difaaci lahayd maamul goboleedyada ay ku mashquulsan tahay marka dhibka waxa iskale idinka shacabka hadda shacabka reer Kismaayo haday dabcaan maanta in dhulkooda la burburiyo oo la baabi'iyo way noqonaysaa dadka ilaahay deegaanka ku beeray ayaa dhulka iska leesan reer Garowe maanta shacabkooda ma jeerteen maanta waxaan u hayaa reer Garowe iyo Puntland waxaan u hayaa sharaf iyo kalaam u hayaa shacabka aan u tumaya shacabka ayaan u tumaya rag tashaday weeyaan oo dalkoodii dhistay oo deegaanka u dhistay sidoo kale reer Jubbaland hadda inkastoo la damacsan in laga burburiyo reer Jubbaland waxa yaani waa dad tashado dhistay waxa loo baahan yahay marka dhulka dhibaatada ugu faraha badan ka taaganta dhulka hawiye ee argixisadu ku maganaysa maalin walba ku qarxinayso marka hawiye walaalayaal gacanta isqabsada waan idin jecelahay sharaf iyo karaamad iga mudantiin idin ma caayo idin ma xumaynayo qabiil aanu ma caayo mana gudbina xumeeyo mana si kale uma waxay laakiin hawiyo dulmiga idin haysta argagixisada cidin ka difaacda aad weydeen amisoon idin ka difaaci weydii maalin walba la idin qarxinayo saraakiishiini ciidankiini wax walba ay dhamaadeen waxa la ka tashataan oo gacanta isqabsataan oo dhalinyar ahaan oo dhaqaale u urursataan oo lacag u urursataan oo meeqaanka Muqdisho u istaagtaan oo ciidan samaysataan oo meeqaanka Muqdisho banaanka dhigtaan oo ciidan samaysataan oo awoodiina soo cishataan oo magaalada Muqdisho gacanta ku qabataan oo maamul idinka ka amar qaato oo xoog badan iyo ciidan ka amar qaato xoog badan aad samaysataan ayaa la ka baahan yahay habeer gidirna idinku qolyaha reer galmudug idinku deegaankiina dhista oo deegaankiin u istaaga marka hawiye walaalayaal barnaamij gaar ah idin siin doona laakiin sidan kuma fiirsan karo dadka idin la degan يعني idinku amaan helaan idinkuna aad u amaan heshaan balaalayaal kor يعني isku soo qaada dawlad idin difaacaysa ma arko dawladda Itoobiya bay noqotay nabar yana xin bay noqotay guriga dawladda ku ahaayeen bay difaaci kari waayeen guriga dawladda ku ahaayeen bay difaaci kari waayeen waxa lagu guriga dawladda ku ahaayeen baa loogu yimid oo lagu qarxiyay marka dawladda difaacaysa ma arko idinku marka hawiyo inaad tashataan baa loo baahan yahay hawiyo inaad gacanta isqabsataan baa loo baahan yahay hawiyo inaad idinku tashataan oo loo baahan yahay hawiyo inaad gacanta isqabsataan baa loo baahan yahay hawiyo inaad argagixisada iska xoreysaan baa loo baahan yahay dawladda difaacaysa ma arko dawladda difaacaysa hawiyo ma arko
dawladda idin difaacaysa ma arko injineer yaruusa gurigu fadhiyo loogu soo galo lagu qarxiyo niman dhagaxaan soo dhigo dhagaxaan fil wardhiga lagu difaaco walaalayaal dawlad aanu idin difaacaysa hawiye ma arko waxa baaba'ayna waa hawiye waxa tirtirmi waa hawiye waxa nag noqday waa hawiye walaalayaal marka wallaahi waxaan daarood dhibka qabtaan daarood ma qabo wallaahi dhulka dhibka qabtaan diga marifla ma qabo wallaahi dhibka qabtaan dir ma qabo ummadda kale Soomaaliya way tashatay laakiin hawiye walaalayaal dadka u Soomaaliya jecel baa tihiin dadkan ugu jecel baa tihiin dad sharaf la baa tihiin dad karaamo la baa tihiin dad cizi la baa tihiin dadan aad u jecel baa tihiin dad dulqaad badan baa tihiin xitaa dad siyaasigooda karbaashto aan ka xanaaqin weeyaan laakiin walaalayaal idinkoo sidaa u dulqaad badan idinkoo sidaa u sharaf badan idinkoo sidaa u karaamo badan waxa loo baahan yahay inaad gacanta isqabsataan oo qarax iyo argagixisada iska xoreysan dawlad aan inay xoreynaysa ma arko runta ka hadlaya wallahi runta ka hadlaya farmaajo waxyaalaha ku dhalan ka hor mid qaraxi magaalada Muqdisho weeyaan maalintaas waxaan go'aansaday farmaajo damiina lagu soo qaaday khayradda ma lagu soo qaadin dawlad tan dhaanta haday noo timaadana alxamdulillah haddii de waxaan ina sii dul joogaana walaalo inta idinku is sii difaaco oo idinku gacantiina is qabsada oo idinku is ilaashada hawiyo taasaan idin leeyahay hawiyo taasaan idin leeyahay hawiyo taasaan idin leeyahay okay waxaan u sii guda galayaa midda kale shirka habar gidir waxaan la hadlayaa habar gidiray shirka ka soo baxay shirkii hubiyo waa inaad ka gaadhaan guul waa in maamul goboleedka galmudug noqdaa maamul goboleed awood leh aad ii faham maamul goboleedada kale ee daarood waa in la sinaadaa habar gidiray qabiilka ugu awoodda badan baa tahay maamul goboleedkaaga dhiso yaan lagaa burburin yaan la isku kaa soo adeegsanin jaajuus iyo Etoobiyaan iyo balaayi axmar jacayl yaan la isku kaa adeegsanin yaan adiga la isku kaa dhufanin maamul goboleedkaaga dhiso federalism baa la qaatay maamul goboleedkaaga dhiso habar gidiray taasaan ku leeyahay abgaalo aduguna Muqdisho war gacantaada qabo wataas Soomaali wax ku noqonaysa qabiil walba dhulkiisa haduu dhisto qabiil walba dhulkiisa haduu amnigiisa sameeyo markaas Soomaali noqonaysa sida ma jeerteen dhulkiisa u dhistay ma jeerteen gacan bay naga mudan yahay ama harti oo dhan gacan bay naga mudan yihiin waayo dhulkoodii bay dhisteen dhulkoodii bay dhahaan lama faragelin karo maamul goboleed awood la bay dhisteen sharaf iyo karaamo isku yeeleen sharaf iyo karaamo ilaa isku yeeshana wallahi cid ka leexanaysa ma jirto sharaf iyo karaamo blokaasi maanta garow qarax ka dhaco kama dhacay bal baa hoos qarax ka dhaco kama dhacay waxaana dadka ugu Soomaaliya jecel waa hawiye dadka ugu qadiyada fuun waa Soomaaliya dadka aan maanta Itoobiya la soo agmari karin waa hawiye dadka aan adiga walaalkaaga hadaad Muqdisho la joogto cadu ku dhibin waa hawiye wallahi wiil hawiye ku dhibin wiil hawiye wallahi buu ku dili laakiin kuma dhibay wiil hawiye uu ku dili laakiin kuma dhibay Soomaaliya kale ka turso dir way ka suurto daarood ka suurto laakiin wiil hawiye uu ku dili laakiin kuma dhibay haduu doono uu ku dili wiil hawiye laakiin kuma dhibay cadu kuma dhibay Soomaaliya walaalka Soomaali ilaa maamad galbeed ka timaadid ama maad koonfur ka timaadid waa dad yacnihi waliba tan bixin oo reer magaalo sharaf badan laakiin dhibaato haysata dhibaatadaas waxay tahay qarax baa ku socda hawiyihii wuu tirtirmay waxa beelaha ugu tirada yar bay noqon doonaan haday sidan ku sii socdaan wallahi beelaha u tirada marka argagixisada iska xoreeya hawiyo maamul goboleedkiina galmudugna dhista intaad tirtirmi lahaydeen walaalayaal aniga run bay iga tahay walaalayaal aniga run bay iga tahay wallahi aniga run bay iga tahay wallahi run bay iga tahay hadaad sidan ku sii socotaan hawiyo waa tirtirmaysaa hawiyo hadaad sidan ku sii socotaan waa tirtirmaysaa dad hawiyo sidan ku sii socotaan siiba hiraabo hadaad sidan ku sii socotaan waa tirtirmaysaa qabiilaan gaabad noqonaysaan qabiil yar baad noqonaysaan qabiilada ugu yar baad noqonaysaan war sidoo daarood dhulkiisa u dhista sida daarood dhulkiisa u dhista bal nimanka ma jeertaan fiiri wallahi cid maanta waxaan ku yiri argagixisada sanka ka laagayaan cid walba sanka ka laagayaan ciddii Itoobiya qashin wada sanka ka laagayaan ganaysa dawladnimada maxay ku imanaysaa federalism baa la qaatay Jubbaland markay soo xoreyso iyo daarood halka degan ay gacanta isqabsadaan daaroodka galmudug degan Jubbaland Puntland degan ay gacanta isqabsadaan galmudug hawiyaha degan iyo cidda kale la degan iyo gacanta isqabsadaan Hirshabeelle hawiyaha degan iyo cidda kale la degan gacanta isqabsadaan Muqdisho hawiyaha degan gacanta isqabsado koonfur galbeed nimanka yiraahdo raxaweyna degan gacanta isqabsado iyo nimanka kale ogaadeen inuu qayb talaale ay gacanta isqabsadaan taasi ma gobolada ku dhisanayaan taasi dawladdu ku imanaysa taasi sharaftu ku imanaysa laakiin maxay ku imanaysa kooxan la sugana ma arkaba dawladna ma arkaba nabar iyo qoliyo yar yar oo meel lagu ilaaliyo walaalo ma qolada ay shineeriyosu gurigiisa waa lagu qaxiyay iyaga noloshoodii farmaajo isaga wax ilaaliyo u baahan farmaajo muxuu shacab ilaaliyaa isaga wax ilaaliyo u baahan isaga oo cabsanaya mabniya isaga oo cabsanayo isaga oo cabsan ilaahay baan ku dhaariyay farmaajo iyo injineeriyosu iyo khayr way siman yihiin way sinaan saddex nin awood la hayeen kol hadii injineeriyosu maanta loogu magac daray garoon
وشلنا ولا ما ترى قرن لهم ما أدري ده فرماتنا مالها مقتول ما قرن قدال ما قرن بل ما مركب حيس ليه رج يجيبه يعني لا إلهنا أديك ما كل على كلام rag iyagii noloshoodii nolosha amnigooda loo cabsanayo oo talow looga cabsanayo gurigii madaxtooyada la qarxinayo ma shacab bay amnigooda lagu sugi karaa waa maya war maltaa fiiri war injineeriyalu soo gurigiisa loogu galay iyo madaxdii kale meesha ku dhibatay qaaliga ahayd xalaliya qaran kale qaaliga gurigooda loogu qarxi shir bay haysteen maxaa ku soo dhawaa farmaajiye khayr argixisada heerkaasi gaadhay sirdoonka qolyahan dawladda lagu sheegay sirdoonba ma laha argixisada sirdoonkeeda maxay gaadhay inay guryihii dawladda qarxiso marka adu haddaan islaalin oo adu shacabka sirdoon samaysanin oo adu shacabka oo markii hore daarood la saashii ku daaroodka xoog daqiiqad baad ku saarteen argixisada daqiiqad baad ku saar kartaan wallahi billahi war saas warni adeer awoodi ma garaysa daarood iyo hadii bigur iyo dir baad isku dhaafiseen ya nimanka wiyo niman adag baa marka intaasna waa kaftan waxa weeyaan marka adeerayaalow hawiyo hadal kuma sii badanayee anugu meesha kuma arko dawlad shacabka amnigeeda sugi karto kuma arko dawlad iyadii amnigeedii sugan kari weyday madaxdoodii ilaashan kari weyday wallahi anu shacab inay amnigood sugayaan uma arko taas xaqiiqada hadalkaasna cid walba akhri cid walba dhuugo cid injineeriru soo mas'uul ah baa la sugi kari amnigiisa ma shacab amnigiisa la sugi waa maya bal qaraxi soo ba ka soo bilow ilaa qaraxi injineeriru soo ku dhintay u dambeeyay imse qof baa dhintay 1 milyan oo qof way dhintay 1 milyan oo qof baa dhintay marka fiiri marka barnaamijkan ku badiyay taas waa taa hawiyo tashada waxaan u sii gudagalayaa Jubbaland update kama siinayo update Jubbaland waan dhameeyay warbixin kama hadlayo Jubbaland waxaan kaga hadlay dariiqada sayidka saacada ka hor dad far badan oo ultiri daawan dhowr boqol daawan saddex ku jirtay sax hadaan daawanayna sax halkan Jubbaland qof walba aragtida soo dhiibo Jubbaland nabar iyo naxariis sida u faragelisay sida u aragta sida argagixisada waqti loo siinayo shacabkii la isku mashquulinay sida u aragta Ethiopia Kenya midkii cadow Ethiopia Kenya midkii cadow argagixisada in waqti la siiyo oo maanta cali dheere waqti la siiyo iyo rag la midka waqti la siiyo oo shacabkii dadkii dhisnaa ciidan Ethiopiana lagu weeraro ciidanka Ethiopia inay xakameeyaan lagu talagalay lagu weeraro sidoo u aragtaa ila dood marka hadda iga fikir doonta ku soo qabanaya wada fikirkayna fikirkaaga dhiibo wararka media okay waxaan soo qabanaya ninka laakiin qof walba telefoonkiisa soo qabanaya telefoonkiisa balaariyo qof walba telefoonkiisa balaariyo insha Allah bidillah kariim qof walba telefoonkiisa balaariyo wiilkaas uu soo qabsanayo oo telefoonkiisa ma balaariyo ma filayaa ma soo qabsanayo insha Allah bidillah kariim telefoonka saa u dhiga insha Allah bidillah kariim dad WhatsApp leedahay WhatsApp iga soo wac dad WhatsApp leedahayna insha Allah bidillah kariim WhatsApp-ka iga soo wac walow aan sameecad iyaan soo qaadanin oo codku inuu hoos u dhacmaa dhici karto laakiin haddaad WhatsApp leedahay WhatsApp-ka iga soo wac haddaad WhatsApp leedahay WhatsApp-ka iga soo wac insha Allah bidillah kariim wiilkaas ma qabsanayo insha Allah bidillah kariim waxaan soo qabanayaa salaad ka ugu sareeya ayaan qabanayaa insha Allah bidillah kariim hadda WhatsApp leedahay halkan iga soo wac hadda WhatsApp leedahay waxaad iga soo wacdaa soo dhawow mas'uul aad baan ku soo dhaweynayaa 100% soo dhawow Hello. soo dhawow aad baan ku soo dhaweynayaa soo dhawow saad u aragtaa doorashooyinka Jubbaland iyo hawlaha halkaas siyaasay nabar iyo naxay meesha u weerartay saad u aragtaa in yarikaadii dad WhatsApp haysto WhatsApp iga soo wac waxa weeyaan +33 haddaad WhatsApp haysto WhatsApp iga soo bax waxa weeyaan +33 ama 33 buura ah waxa weeyaan mar labaad ku celi waa 36 toddobaatan buura ah 89 95 6 tan kugu celiya mar labaad dad WhatsApp haysato WhatsApp iga soo wac waxa weeyaan plus 33 96 toddobaatan 89 95 6 mar saddexaad aan kugu celiyo
وصدني يصدح قرو صدني يصدح قرو تضباطني اللحن قرو تضباطني اللحن قرو وهل يعني تضباطني اللحاد وحويا تضباطن برانا قرو وحاد قرطا سديتن يسقال قرو سقاشن يسقال قرو وسقال سقاشن يسقال قرو كنتن يلحن قرو مايا marka qodobka u dibeeyay khalday waxa weeyaan waa 3 waa 67 3 eber 8 9 konton iyo taas weeyaan marka insha Allah Abdullah Karim hadaan soo dhaw mas'uul dhawahay okay maxaad ka hadlaysaa seedo arta Jubbaland iyo xaaladaha iyo mureeda ranta sayidku waa soo dhaweynaya tilaabada uu qaaday okay maxaad markaa kula talinaysaa maadaama ay fikirtay maxaad shacabka kula talinaysaa oo umuraha kula talinaysaa oo leedahay maxay iska ilaaliyaan leedahay seedo arta laakiin in ciidan Itoobiyaana maanta loo adeegsado Kismaayo nabadgelyo taasi waa qalad waxaan u arkaa ciidamada Itoobiyaanka qalad bay dalka ugu walba soo joogeen marka sayidka iyo shacabkiisa waxaan leeyahay amnigeena ilaashada waan gartay aad baad mahadsan tahay mas'uul boqol maxaa ku daraysaa waxa kale ku daray nabad hal ilaaliyo baan leeyahay nabad laga shaqeeyo aad iyo aad boqol mahadsan tahay insha Allah Abdullah Karim xagaa ka jar mas'uul insha Allah Abdullah Karim aadna waan ku salaamaya boqol soo dhawaada mar labaad mar saddexaad kuwa ila aragtida duwan soo qabtaan rabaa dhowr qof soo qabto insha Allah Abdullah Karim kuwa ila aragtida duwan soo dhawaada waan soo qabanayaa insha Allah Abdullah Karim qof walba oo fikirkaaga dhiibo yaa taageersan tahay nabad iyo naxdin maxaa ku taageertaa hadaad taageersan tahay soo dhawo markaa warkabarada waa sii jeediyay ila soo dhawaada hay soo dhawaada markaa insha Allah Abdullah Karim wiilka Xasan ma qabsanaysid aad baan uga xumahay mas'uul insha Allah Abdullah Karim waan ka jarayaa ku kala ku celinayaa qof kale soo dhawaada insha Allah Abdullah Karim waxa isku daydaan please waxa isku daydaan inaad telefoonka caadi u dhigtaan saa u dhigtaan telefoonka waxaan filayaa in barnaamijka ka sii bixi doono sababtoo ah way gabadhaashan way jartay gabadhaas way jartay barnaamijka sii share gareeya waan ka baxaynaa insha Allah Abdullah Karim daawa waxa yar ku sii doonaa soo dhaw walaal sharafay maqlaysaa si fiican ma ku maqlayaa aad iyo aad soo dhawow maxaa leedahay doorashooyinka Jubbaland aragtaa dawladda khayriya farmaajo si u farageliyeen magaalada Kismaayo iyo sida u weeraraan seedo aragtaa iyadana ay ciidanka Itoobiya u weeraraan qodobka kale saddexaadna waxa weeyaan Itoobiya iyo Kenya mid ka cadowno hadii labaduba ay cadow noqon waayeen bal cadowno inaan codii laakiin hadii la kala jeclaysto la istiraado mid ka sii daran soo dhaw war head si fiican ma ii maqlaysaa laba erayaan rabaa inaan dhahe aad iyo aad ha si fiican lagu maqlayaa aniga gabar habar gidir ah koodhe waxaan leeyahay FIFA Axmed Madoobe waan gartay maxaad ku taageertay markaa si fiican ma lagu maqlahaa Axmed Madoobe waxaan ku taageeray waa nin rag oo maxaan ku dhahaa karti leh oo wadankiisa meeshu asaga gacanta ku haya difaacday baan aan ku taageeray maaha ninkii madaxweynaha wadanka Jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha oo inta cararay axmaar dabada ka soo galo yiri Axmed Madoobe ii soo qabta nacalab baa kugu taala wax alla wuxuu yahay male guushana way soo socotaa Axmed Madoobe intuu ka soo baxayo meeshaas oo la dooranayaan sugeynaa ma garatay xamarna way iska qaadaysaa heeriyada iyo dhagaxa dusha laga saaray ma fahamtay intaas ay ugu xiran marka Axmed Madoobe guul baan leeyahay waa nin ragaan leeyahay lagu daba faylaan leeyahay dadka oynayo waxa ku fiican inta maanta ad janiska sida Axmed Madoobe ku daba soo feeshid laba ereyba inta waxaan kale ciyaal yar oo Facebook lagu soo daayay oo la yiri ogaadeen iyo waxaad caydaan hawiye war hawiye ogaadeen waa laandheero waryaa waxba kama qaadi kartaan laandheero degi oo banaankaas degi oo korka ku kaadiyo waaye waxba kama qaadi kartid midka libaax direed la yiraahdo hadda uu kugu jira aniga direer abtiba ina wax ka sheega ma rabo shalay wuxuu caynayay Cabdulaahi Balwaan codkiisa kaliya kugu dilay asaguna wax kale kugu sameeyeen codkiisu dhulka kugu dhigay ninkaas
waa ragga aan siiye bilad geesida ninka Cabdullah Balwan de miskiin yar oo wax maxay maxay ka sheegi cid gaaraysa ma jirto ninkaas maya codkiisii baa laga cabsanayaa 30 iyo 20 baa fiirsato uu soo taataabto dhoo kaale u fiirso Cabdullah Balwan naagtiisii baa ka tagtay naagtiisii hatta waxay gaareen in guryaha galaan iyo reeraha iyo kastuumada saas bay u akhlaaq daran yihiin sharaftii baa ka tagtay labadii dollar ee loo qaybinayo waxayba ku qaadeen akhlaaqiyana ma gaartay tan ogaadeen ma gaartaan ma garatay madaxay idinkaga istaagayaan dawladda soo socotana waa hawiye ogaadeen kii ku farxay iyo kii ka naxayo korkaan kaaga diro hada tabar leedahay reeratiba ay tahay dhulka meel kasta Soomaaliya ku geysta meel kastana hambadaad ka cuntaa diro aad habar gidir oo dadka ugu Soomaalida jecel oo aad Soomaali jecel oo geesiyaal farda ka dhasheen maxaa leedahay maamul goboleedkoodii yacni awoodiisu maxaa leedahay bal habar gidir bal la taliyada laftooda waa aragtiniyo dhuusamareeba Itoobiya loo adeegsaday dhuusamareeba Itoobiya loo adeegsaday habar gidir way israacday intooda kala shirkaas laga sugayaa jawaab insha Allah ba jawaab fiican ka soo baxaysa kismaaye ninkii ka naxaya kii ku farxaya kii ismarjinaya kii isdaldala idin leeyahay xarig isku xiro korkaas la iska soo laalaadiya Axmed baa soo baxaya 14 sano haystay 4 kaloo qabanaya 4 kaloo ku xigaya 4 kaloo ku xigaya madaxweynuhu Soomaali ka noqonaya ayaa wax ka qaadi kara waa keeninka rago intuu banaanka soo istaagan laan gaab yaal baatiin markaas waree ama derbi oo ma derbi ku tiirsano baa la yiri ma fahantay laan gaab ana kuma tir dhulka bari ugu jiidaya ma fahantay kii ku naxaya kii ku farxayo guul balay Axmed Madoobe guul soo baxay derbi jawaabta soo baxay gabadh habar gidi tahay dadkii aadka u kartida badnaa tahay reer muduga farmaajo markuu soo baxayay Itoobiya nacayb inagu rushin wada weyn xitaa iyo macal family kulli Itoobiya nacayb oo yani geesi inuu soo ka dhigi jiray kuwii la safnaa shaynaha Itoobiya nacaybka isaga u ololeeyay Itoobiya nacaybka u ololeeyay iyo isagiiba kuwii la safnaanay Facebook live waxa la soo fadhiisanayaan Itoobiya 30 sano dambe hadayna garab siinin hadayna garab istaagin waynu baabi lahayn Itoobiya 30 sano dambe maxay noo qabatay waa nimanka al-shabaab niga xoreeyay waa nimanka maxay noo qabtay live la soo fadhiisanayaan isagiina wuxuu ba sameeyay waa qofka ku dhaatay shakhsi nool gatay sargaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan maantana Dhuusamareeb u adeegsaday Baydhabo u adeegsaday maantana wuxuu adeegsaday Kismaayo iyo ciidan Itoobiyaan u adeegsaday oo waliba tan si sharci darraa intuu Itoobiya ka soo duula si sharci darraa Kismaayo uga daga يعني أرنت النوع عاصة ولبا إلا هذا إنه عيك إثيوبيا سياسة كرايو العقد كل حياة والدمعسية هي محيطة مركا سيتها أرنتو مركا وراي حلك اللقباني إثيوبيا نعيب كحاجة يوقع عليهم حاجة نعيب waxa markii horena dadkan aad taqaanay niyo ma yarteen kuma sheegay waa u ololeynayna aniga kamida dadkii u ololeynay farmaajo waxaan u maleynaynay nin wadani ah nin shaati kastuuma Itoobiya hoos uga xirantay surwaalka ugu hooseysa uma maleynayn shalay Xasan Sheekh wuxuu ku haystay Cabdi Ilayba wuxuu la soo dheelay dhaanto oo nin Soomaali ah asagana yuu la dheeloyaa marka maanta amxaaro kasi oromo kasi xun waliba amxaaro uu hadda la jooga oo bariiska uu soo reebay uu cunoyaa ma fahantay marka shalay waa u tunnay waa soo dhaweynay anaka Soomaalinima naga go'an anaka dad Soomaali jecel baan nahay بصراحة قبيلنا شقم كله نين كستو وصومالي ونلا دشي لكن نينكي سحن ولا رقمه واسكعلنا ما أنت فرماج كوبا صو نقول ماي هدو أحمد مذوب صبحه فرماج صوبه نقول مقتش كوما صو نقول يو أنت أسأل السوق يعني يو وحن لا يهمبلي ها اسم مرتيان لمن كان نبر إيه نحدين تاجروا ماشي كتيرو شقك لا هيسين ملا جريها ريرها إيو كستوما ذا ناجها إيو أول بريرة كستوما ذا هيدين ما فهمتي كستوما أول بشركة كوا هيدين عند وذاك بهيدين كشقية قبلها ريرو أحمد نحلة إن محمد عبد الله بلوان نين كستوات وصومالي ودمو إسفرتوه كلا تقدر إلهي بيكوي ماذا أحمد عبد الله بلوان وانين رجع كلمتي سبس بقلنا السيف إذن كوا كعب 60 يا وحكي قاضي كره واكاس بنان كاس وتجعد كيس اللباح بقوم الله يسامركوا هذا اليوم كسماعي يحمدوا بن ودافع يا أنا وندافع يا هوي لأنه ودافع دير يبل محمد على لانجاب لأنه إستثار عبل وإحنا قاعدة واكاس مانت أنت سانكاج تجي بدو ما صنت شرفي بقول كيو بقول يا بدو ما صنت سود ومطلبات أبنكم سلامية
soo dhaafa gabadhaasi waxay ahayd gabadh reer galmudug ah reer galmudug axmed maxamed islaan yaa jecel dee waa dad ummadda soomaaliyeed badan baa jecel waa fikirkii dadweynaha wararka media